sheekada filimkeena maanta waxay ku bilaabanaysaa ninkan yiraahdo Sang waa CEO company weyn waana nin aqoon iyo caqli u saaxiiba waxaana soo korsatay ayeeyadiisa kadib markay waalidiintiisa geeriyoodeen ayeeyadiisana way geeriyootay maxayna dardaaran u tagtay markii geeriyoonaysa inay company-ga maamulkiisa la wareegi doonaan gabdhaha familka inkastoo Sang aanu guursanin wax carruurna ay u joogeen laakiin waxa laba gabdhood u joogta adeerkiisa bilaa dabeecadda ah Sang wuxuu kala warwarsan yahay familka hadii uu company-ga gacanta u galo maamulkiisa inay dhulka la gali doonaan marka wuxuu qorsheynayaa inuu korsado gabar yar si uu adeerkiisa ugu hortago wuxuuna haystaa muddo 2 bilood oo kaliya ah dhanka kale waxa arkaynaa atirishada sheekada waxaana la dhahaa Ayan sidoo kale gabadhan waalidiinteedu waa geeriyoodeen waana gabar ku nolol iska faqri ah waxayna la nooshahay walaasheeda Dambi xataa guri ay ku noolaadaan ma haystaan Ayan waxay ka shaqaysaa cafeteria sidoo kale waxay aad u baadi goobtaa shaqooyin baartitaan ah milkiyada guriga ay degan tahay waa naag bilaan xariis ah maadaama Ayan guriga jaarkiis ay bixin weysay waxay u qabanaysaa isbuuc gudihiis inay ugu baxdo milkiyadana wax naxariis u muujinayso kama fikirayso labadan gabdhood meesha ay ku dambeey doonaan maadaama meel kale ay aadaan in haysanin waalidiintoodana muddo ka hor ay geeriyoodeen laakiin milkiyadda ma doonayso wax naxariis inay u muujiso gabadhan ugu dambeyn Ayan internetka ay waxay ka arkaysaa guri raqiis ah iyadoo eegaysa ay waxay maqlaysaa walaasheed Dambi oo gabdhay kale la doodayso gabdhihii yaraan Dambi ay waxay ku leeyihiin aabaheen ayaa meel noo weydaayo adigana ma raacaysid maadaama wax teena iyo aababa aan haysanin isla markaas Ayan waxay ku dhahaysaa aniga teena idin gadaayo laakiin waxay ku leeyihiin aabba ma laha gabadhan Dambi eragaas aad ay ugu xumaanaysaa Ayan aad ay ugu xumaanaysaa sida Dambi wajigeeda isku bedelay kadibna gabdhihii ayaa ceersanaysaa ayadoo ku dhahaysa ku soo celi waxa dhahdeen dhacdadaas kadib waxa arkaynaa Ayan saaxiibkeeda Joho ilaa yaraantooda ay saaxiibo ahaayeen aad ayuu ugu fikiraa gabadhan kadibna sheekada ay ugu sheekeynaysaa sidii gabdhihii yar ay Dambi u daadaansadeen kadibna arrinkaas ayada ka careysiiyay ayna ka ceersatay beertii ay ku sheekaysanayeen si ay cashar u barto kadibna Joho ayaa ku jawaabay gabdhihi ma fiican yihiin oo wax ma gaaray maadaama uu yaqaan gabadhan xanaaqeeda iyo sidii wax u burburisay markii xanaaqdo markaas intii ku soo jeestay waxay leedahay noocaas ayaa taasoo maahan gabdhahaas wixii ku dhacay iska daay adiga wax kugu dhici doona ka fikir bay ku leedahay Johona wuxuu ku leeyahay isdaji aniga ma doonayn inaan ka xanaajiyo kaftan bay iga eed kaliya markaasna waxay bilaabaysaa inay ka weewarsho gabadhii walaasheed Dambi Joho ayaan ku leedahay Dambi saacan waxa laga yaabaa inay meel iska fadhiisto iska oyso halka uu Joho ku dhahay maadaama ay walaasheed aad u waalsan tahay soco oraday u tag aniga booska shaqada buuxin doono waan ugu mahadcelinaysaa kadibna goobta ay isaga cararaysaa dhan kale waxa arkaynaa Dambi oo meel miraayad taagan kadibna fiirsanaysa gabar iyo aabaheed oo raashin meel ka cunayaan gabadhan aabaheed la socotana aad ay ugu maseeraysaa aabaheed ayaan u xiisaysaa kadibna ninkii maqaayadda milkiilaheeda ayaa soo baxayo gabadhii yareed Dambi ayuu wuxuu ku leeyahay isaga tag meesha maxaa yeelay customkii ay problem ku noqotay oo way ka soo sheegteen sidoo kale wuxuu ku leeyahay wariyaha waalidiintaada kuma soo baramiya inaad la fiiran dadka raashinka cunayo in sida la sameeyo akhlaaq xumo ay tahay isla markaasna Dambi wuxuu sheegaysaa inay wax waalidiin ay lahayn halka ninkii oo careysan hadal xun uu ku dhahay gabadhii yariistayd isla markaas ay seen oo goobta kaga dhawaad hadalkooda maqlay ayaa wax ku dhahay maxaa meesha ka qaldan oo qaladka jir muxuu yahay gabadhan aniga ay waalidkeed ah kadibna gabadhii ayuu wuxuu ku leeyahay hadii gaajo ku haysan soo raac si aan cunno soo cunno waxay ay fikiraysaa kadibna way ka ogolaanaysaa Ayan idoo walwalsan ay guriga joogtaa maadaama waqti dambe oo habeen ay tahay inantii yareedna guriga ka maqan tahay ayadoo Joho raashinka u soo dhiibay ugu mahadcelinaysa ayaa Dambi imaanayso kadibna waxay ku leedahay inta ku soo daaday isla markiina waxay leedahay raashinkan Joho noo soo diraan cunno laakiin gabadhii yareed maadaama caloosheeda hore u soo buuxsatay waxay ku leedahay aniga wax cunno u baahan waqti xaadirkan oo waan riganahay sidoo kale Joho waa inay iga mahadcelinaysaa raashinka uu soo dhiibay halka Ayan uu malaynaysa gabadhan inay weli ka murugsantahay gabdhihii waxay ku dhahayeen sida darteedan isku qadanayso isla markaas Dambi ayaa la soo boodaysa aabbo u baahan tahay Ayanay halka Ayan ay ugu jawaabaysaa aniga waqti xaadirkan qof weyn ayaan ahay waxaana waajib u ah nafsadeeda inaan ka taxadiro sidoo kale adina ka taxadiro waxaana jeclaan lahaa lottery inaan ku guuleysto si aan labadeena noloshan u maareeyo nololtan kan wanaagsan aan galno maadaama iska fahansantahay gabadhan yariista inay aabanimo aad u xiiseynayso oo qof aabba u noqday ay aad u jeclaan lahayd isna dhaysan niyadda ha ka dilin ay wixii u jawaabaysaa sidoo kale waan u baahnaa lahaa aabba inaan helo naftayda kadibna cunadkii yareed hadalkaas markay maqasho aad ay ugu farxaysaa waxaan ku leedahay waan ku helay riyadeeda wax ku rameeyo oo aabba waan ku soo helay laakiin Ayan indha ayaa ka soo harayo oo la yaabantaa waxay ku dhawaaqayso gabadhan yariista ah maadaama ayna la socon arrinka sida uu jaro isla maalintii xigtay Sang ayaa arkaynaa uu imaanay Ayan kadibna gaarkiisa ganacsiga ayuu tusinayaa waxaana ku leeyahay saacan laga bilaabo waxaan ahaa aabaha oo kale Ayan oo isku dhacayaasan sida wax u socdaan aan garanayn ayaa waxa loo dhiibayaa fail oo kontraad ah waxaana ku leeyahay Dambi miyaa la dhalatay adiga Ayan ku leedahay kadibna wuxuu ku leeyahay aad ba isugu egtihiin labadiina isla markaas ay weydiinaysaa Dambi sida uu yaqaan iyo meesha ku bartay wuxuuna u jawaabayaa kontraadan arkayso aad u jeedo waxaad saxiixay Dambi halka Ayan ay ku jawaabayso aniga waxa aabba u baahni oo aabanimada ay sheegaysa maxay tahay khaasatan aabba 5 sano iga weyn ma doonayay ay ku leedahay balka waran qof 5 sano ka weyn duu ku imaado ku dhaho aabba ayaan ku noqonaya oo korsanaya marka waxa dib u noqonaynaa sheekada dhexmartay Dambi iyo nimankan Dambi markay kulmayeen waxay ku leedahay idinka ma xatiin
gabdhaha yiriska ku afduubto oo maxaan doonaytaa inay raashin ku sartaan kadibna ay afduubataan halka saan uu ku dhahay in lacag baan haystaa mana doonayo qof inaan afduubo dadka afduubana lacag ay madax furasho ay u raadsadaan sida inay kalsooni ku leeysa kula joogto isla markaasna wuxuu weydiinaa sababta dirshid u tagnay dadka u fiiriyaysan raashinka cunayo gaajo miyaa ku haysa oo cunto miyaa doonaysa ay ku leeyahay laakiin iyada waxay u jawaabaysaa sida maaha arrinka ee waxa fiirinay gabadhaas aabanimada aabaha haysto anigana aabanlaan ay hayso arrinkaas kaliya ayaa murug ugu haysa ay ku leedahay hadalka gabar ku hadlaysa markuu maqlana qorshe ayaa isla markii ku soo dhacayo maadaama uu baadigooba ay gabar u karsado si adeerkiisa ugu hortago inuu kambaniga kala wareego isla markaas ay ku leeyahay aniga ayaa aabba ku noqonayo Danvina aad ay ugu farxaysaa oo keenayna leedahay ayana aaminaysa ilaa ay ka tusaan warqadii Danvi ay gacanteeda ku qortay kadibna ayana ayaa waxay weydiinaysaa faa'iido ugu jirto inuu ilmo ka dhigto ayaga waliba iyadoo farqiga da ahaan u dhaxeeya 5 sano kaliya uu yahay dadweynaha diyaarinka maqlaana waxyaabo badan ay dhihi doonaan kadibna wuxuu jawaabayaa waxba igama gelin dadka waxay dhahaan kaliya waqti ayaan ku siinayaa kasoo fikir arrinkan isla markiina wuu isaga tagayaa umana sheegay arrinkan ka dambeeyo ayan inuu ilmo ka dhigto wax ku kalifayo oo adeerkiis inuu kambaniga kala wareego ninkaana weli diyaar uma ahan inuu gabadhan arrimahaas kala hadlo kaliya wuxuu kala tashtaa caabiyihiisa khaaska ah maadaama iyadu dardaarankeeda ina kala saarin gabar la soo korsaday iyo gabadha ay familka ay dhaleen dhanka kale ayan ay Juho ay u tagaysaa kadibna arrinka ay ugu sheekaynaysaa Juhona wuxuu ku leeyahay sidaasa aniga waan la socdaa inaad si aad ugu fikiri doonin arrinkan go'aan ah gurigiisina aadan aan qadan doonin nacasnimadaasna kuma aqaan ayuu ku leeyahay ayan waxay u jawaabaysaa wax suurtagal maahan oo isku wareeri maayo laakiin arrinku way ku weerarsan tahay weli isla subaxdii xigto waxa arkeenaa ayan iyo Danvi ay guriga tagayaan wiilkii halkan waxay ka ogaanaysaa ninkan inuu qorsheenayo inay isla wada noolaadaan guriga isku noolaadaan isla markii arrinkan maqasana way isku naxaysaa kadibna waxay leedahay kontraadda arrinkan kuma jirin ee sidii halkee ka keentay ayadoo isla markaas go'aansatay inay kontraadda kansasho ayay waxay arkaysaa gabadheeda walaasheeda Danvi oo guriga aad ugu faraxsan kadibna kor ka soo qaylinayso kadibna ayan wax yar ay dib isugu noqonaysaa oo inay iska ogolaanaysaa arrinkii sidoo kale markaan wax dib ugu noqonaynaa inanta yar ee Danvi markii kontraadda saxiixaysay waxay samaysay qorshe caadi ah ay u dagtay kadib markii warqadda dhamaysay qoraalkeedii ayna saxiixday ayay waxay u sheegtay gabarka walaasheed ah oo ka weyn inay jirto la'aantan arrinkan uu suurtagelayn waajibna ay tahay in lagu soo daro saana indha ayaa ka soo harayo maxay ugu sheegaysaa ayuu leeyahay arrinka dhicin lama filaan ayaan ku noqotay arrinkaas marka hore wuxuu u maleeyahay in yar oo meelaha isaga nool oo cidna u joogin laakiin hadda wuxuu ku qasban yahay gabadh kale oo idil dhalatay oo walaasheed ah ka weyn inuu arrinkan ka soo dhacsiiyo arrinkana sida uu cuslaaday markaas inay markuu soo go'aansaday inuu gabadha u imaado kaarka u keenayay isla markuu albaabka ka soo galayay gabadhan aragtida koowaad ayuu waxa u malaysaa in gabadha inuu ka helay marka waxa arkeena ayan oo diyaarinaysa Danvi gurigii u diyaarinaysa inay aado kadibna Danvi way baxaysaa iyagoo macsalaaminaysa labadoodaba maadaama markaan Danvi ay maqan tahay waxay markaan bilaabayaan qorshihii qaabkay ugu wada noolaayeen gurigan iyo shuruucda ay deji lahaayeen maadaama ay yihiin laba qof oo dhalinyaro ah guri isla joogo arrinkan waxa sababay kadib markii uu maalmaha kamid ah u imaado guriga iyadoo buumadiisa la laabayso kadibna intuu ku soo cararo ka dafo ku leeyahay maxaa dharkii ku geey sidoo kale iyada box ay diyaarsatay oo bisa ay ku habaysan jirtay ayuu ka tuuray kadibna way weynaysaa waxayna ku leedahay maxaa alaabay ku geey oo tuuraysaa marka sharciga koowaad ay dejinayaan waxa qof walba qofka kale alaabtiisa inuu taaba karin xeerka labaad ay dejinayaan waa in booq la iska ilaaliyaa kadib markii asigoo shaqaynaya ay telefoon ku hadlaysay kadibna uu adkaysan waayey maalin wuxuu arkaya iyadoo caana dhacay wax ku cunayso bashaariyo kadibna intuu ka qaaday ayuu ka daadinayaa iyadana waxay ku leedahay finijiga ayay ku jirtay waa iska isticmaali karnaa maadaama qof maskiin iska yahay waxaas iska isticmaali jirtay iyada wax caadi ay leeyihiin wayna markaan ku heshiinayaan in nolosheeda qof walba qof kale xor u tahay inna cid kale ay farageli doonin habeenadeeda ayan Danvi waxay ku dhahaysaa qalab yar ay ku ciyaari jirtay iyo sameeyo ka halaabay kadibna ayan saan ay u imaanaysaa waxay weydiinaysaa tuulka lagu habay lahay wuxuuna ku leeyahay ma hayo waxaasi laakiin waa soo gadaynaa waa haddaan bixinaa kadibna cayayaan yar u darbiga saana ay arkayaan labadooda ilaa labadooda fuliyaalka adduunka ayay ahaayeen oo argagaxayaan kadibna geesinimo inta iska raadiyaan ay bahalkii banaanka u tuurayaan wayna dabaaldegayaan sidii inay libax ka raayeen in libaxsan ka taabtay intii gacmaha isku dhufanayaan ayay isku kordhacayaan isla waqtiga xaadirkaasna connectin ayaa meesha ka dhacayo oo heestii fiiska ayaa halkaa ka daarmayso wadnahay dhag lahay dhag maalintii xigta ayaan waxaan arkaynaa iyadoo telefoon kula hadlaysa Juho kadibna arrinkii dhaca u sheegayso Juhona asagoo yaaban ayuu wuxuu weydiinayaa waxa go'aansatay ninkaas gurigiisa inaan ku noolaato maxaa ka qaldan maxay igu sheegi weysa maxay iga qarisa arrinkaas ayuu ku leeyahay asigoo xanaaqsan inay ila tasho Soomaaliya ayuu ku leeyahay laakiin waxay u jawaabaysaa wax weyn sida ugu weyn maahan arrinkani kaliya waa iska kontraad wax kale oo fursad kale oo ugu badbaadana ma haynin ay ku leedahay inaan gurigan ku noolaado maahane waan la socotay ay ku leedahay guriga aan deganin naagta iska leedahay inay doonayso inay guriga banaanka nooga tuurto marka meelaan ku hayno waan ku qasban inaan helno isla markaas ayaa telefoon guriga waxa imaanayo adeerka Sang aad ayuu u yaabaya gabadha guriga joogto kadibna Sang ayuu wuxuu weydiinayaa gabadha maxay tahay oo guriga maxay ka qabanaysaa masaaxiibtaaba isla markiina Sang wuxuu ku jawaabayaa saaxiibtay maan ee guriga shaqaynayso shaqaale ah
ayan hadalkaas markay maqasho aad ay u muruganaysaa maadaama uu shaqaale ku magacaabay waxayna ka doorbidaysaa waxyaabo kale inuu ugu yeero adeerkiisna arrimo ganacsi ayuu halka ugu yimid inuu kala hadlo kadibna wuxuu ku leeyahay arrintan kala doonaya inay kala hadlo waa arrin khaas ah marka waxaan ka wada hadli doonaa xafiiska oo halka ma ku wada hadli doono markii uu sii baxay oo caawihiisa wuxuu ku amrayaa inuu ilgooniyo ku fiiriyo labadan maadaama xan uu ka maqlay inay baryahan gabar isla socdeen ninkani isla markaas wuxuu bilaabayaa gabadh inuu ka raali geliyo arrinka meesha sida u dhacay wuxuuna u sheegayaa inuu wax kale oo ku sheego uu garanaynin maadaama halkaas afkiisa soo boobo si uu isku baxar fakiyo adeerkiisana ugu shakin kadibna waxay iska leedahay okay waa dhib ma lahan laakiin arrinkan aad ay ugu murugootay iyada kadibna wuxuu raacsiinayaa cidna inaa u sheegto ma xiriirka naga dhaxeeyo maxaa yeelay haddii qof kale ogaado waxaa laga yaabaa inuu ogaado adeerkay dhibaatana halkaa nooga timaado qorshaheena halkaa ku burburo kadibna waxay ku leedahay okay aniga dhankayga cidna kuma ogaa doonto maalintii xigta waxaan arkaynaa ayan iyo joho isla fadhiyo kadibna wuxuu ku leeyahay hooyadii ayaan wax ka dhadhacsiyay inaan noolaato annaga ee gurigan u soo wareeg ninkaas gurigiisa ka soo tag ninkaana kuma qanacsana gabadhan iyo ninkaas gurigiisa joogto kadibna waxay ku leedahay wax dhibaato ma leh aniga mar hore ayaan kontraadda saxiixay oo kama bixi kara hadda waxayna u raacaysiinaysaa waxaan oo dhan waa kontraad adiga dhibaatada ku hays iyo culays ku hay muxuu yahay wuxuuna ku leeyahay hadaba go'aankaas adiga iska leh kadibna intuuna bixin ka hor ayuu xuseynaya hadiyadii markay furtan waxay arkaysaa geedka korontada cayayaanka lagu dilo si ay isku difaacdo maadaama cayayaanka aad uga cabsarto oo la socdo kadibna waxay u raacaysaa meesha kafeega oo ka shaqay jiray si niyadiis u dejiso maadaama halka saaxiib ay lahayd oo asiga u yahay niyadan ay u dejiso wayna dareensantahay inuu ka xanaaqsan yahay inuu ninkaas gurigiisa ku noolaato ugu dambeyn oo ogolaanaya wuxuu ku leeyahay waa isku dhamaatay markaan oo waxba kuma xanaaqsan ee socod dharkiisa soo bedelay kadibna dadkaan caawiyay kastamkaan noo tagan isla markaas laba naag ayaa soo galayso kadibna waxay leedahay ayan yaal lahaa ayan markay u sheegtay idin la dhahane waxay ku leeyihiin daamis oo kulama dhalan gabadhaas dulmilay waayey oo qaatib ka taaganahay ilmaheena ayay fiduulisaa mar walba dhibtaa kadibna juho ayaa wuxuu ku dhahay baalaa yacni nalaga taga halkaan isla markiina waxaa soo galayo sang wuxuuna ku leeyahay arrintan in ayaa soo baaraya oo CC kamerada ayaa soo fiiriyey waxaan halkaa ka ogaaday gabadhiina inay dulmi badan tahay danvin iyada nafta u keentay wuxuuna u raacsiinayaa danvin familkeeda inuu yahay asiga mas-uuliyaddan asiga ay ka saaran tahay haddii wax dhibaato ay ka qabaanna kaarkiisa ayuu siinaya wuxuu ku leeyahay aniga ila soo xiriira atirshadeena ayana aad ay ugu farxaysaa arrinkan ninka u sameeyey labadii habloodna ayagoo faraxsan ayay isaga tegayaan goobta isla markiina wuxuu leeyahay ayan wuxuu ku leeyahay xaafadda waa inaad timaadaa marka waxaan arkaynaa ayan oo guriga soo gaarayso waxayna guriga ugu imaanaysaa sang oo guriga ku sugayay waxayna ku leedahay maanta ciyo ayaa shaqada soo dhamaysa maxay tahay wuxuu ku leeyahay haal isla markiina wuu wadayaa qol kale ayuu geynayaa isla markaasna wuxuu bilaabaya sheekada noloshiisa inuu ku sheekeeyo waalidkiisa sida u dhinteen iyo hayadiisa soo korseeyay hayadiisa u geeriyotay iyadana iyo dardaaranka iyo wixii ay samaysay iyo sidii arrinta u dhaceen iyo qorshaha uu ka leeyahay arrinkan dham isla markaasna ayan waxaa indhahda ka dareemaynaa inay arrinkan ay aad ugu murugootay qorshaha ninkan uu watana ay ku qanacsanin ayada lafteeda saana arrinkii Danvi ee dacwada ah wuxuu ku ogaaday kadib markii iskuulkii ay soo waceen maadaama Danvi ayna siinin nambarka walaasheeda ayan laakiin bedelkeed ay siisay nambarka sang kadib markuu arkay maqlana arrimihiisa ganacsiga dham ayuu kansalayaa si uu arrinka u soo xalliyo waqti xaadirkan ayan asigoo sheekadii u wado ayuu wuxuu u sheegayaa inuu arrinkan dham u sameynayo si uu kabaniga ayadiis u badbaadiyo oo aad u jecel yahay maadaama ayadiis aad u jecel yahay magaceeda iyo kabanigeedan inuu sii jiro uu doonayo markaana ayan waxaa moodaa inay arrinkan ku qanacday ee ku faraxsan tahay iyada lafteeda ayan iyadoo dhol cadaynaysa ayay wuxuu ku leedahay cidna arrinka u sheegi maayo arrinkan sir ayuu noo ahaan doonaa waxba ha ka cabsanin laakiin qof ayaa kor ka eeganaya sawirna ka qaadanayay maalintii xigta fasax iyo duurka u aadayaan si ay u soo baashadaan isla ninkii sawirka ka qaadaya sawirka qaadaya markaan ninkaan cid kale maahan oo adeerkii caawiyihiisa khaaska ahaa maadaama lagu amray in uu ligooniyo ku hayo arrimahoodana xogtoodana u keeno maalintii xigta ayan oo shaqada aadaysa ayaa wuxuu ku leeyahay sang waa inaa iyagu timaada caawa si aniga Danvi u wada cashayno oo bannaanka ugu soo cuntayno maadaama gabadhan uu ka helay okay ayna ku leedahay markaan waxaan arkaynaa asigii caawiyihiisa isla taagan kadibna ugu sheekeynayo muddo kadib markaan inuu qof garabkeeda tagnaaday uu doonayo maadaama laba qof ay noloshiisa kusoo biireen markaan uuna doonayo inuu ka taxadiro noloshooda caawiyihiisa erga markuu maqlo aad ay ugu qoslayaa kadibna wuxuu ku leeyahay niyo aad baa isku bedeshay mana ihid booskii qamarjiga ah ee laga cabsi jiray qalbigaadan aad ayuu jilcay ayan ayaana jeclaatay ayuu ku leeyahay oo jecel ayaa ku galay caawiyihiisna hore ayuu dareensanaya ninkan caawiyihiis kaliya maaha saaxiibkiisna waa yahay isla markaas caawiyihiis sang ayaa taleefon loo soo diraya waxaana loo sheegayaa arrinkii laba gabdhood inuu korsaday sang in warbaahinta loo qaybiyey warbaahintan loo dusiyey arrinkaas dhanka kale ayan mar walba shaqada kasoo tagto waxay soo raacaan joho oo asiga ayaa soo dhoway markii guriga soo aadayso kabaha dheerdheerka ay gashantaana aad ayay u dhibsato markaan oo cagaha ayay ka cuneen kadibna kawa sneaker buud ayuu u soo gaday ayadoo fiirinaysa ayay moobilka waxay ka arkaysaa in arrintii la dusiyey joornaalada dhamman ay daabacayaan isla markuu joho arkana wuxuu leeyahay waqti xaadirka lama baahna in ninkaas gurigiisa aado markaan
isoo fiiri waa la socdaa ninkan inuu ku isticmaalay oo duruufta ku haysto uu ka faa'iideystay waxaan u maleeyay ninkan inuu ka taxadirayo oo noloshiisa khaaska ay wataa uu ku leeyahay waxna ka walwalin ay ku leeyahay laakiin waxay ku leedahay aniga waxba kama walwalsani waxaan ka walwalsanahay waxa asiga ku dhacayo John arka markuu malo isku naxaya kadibna wuxuu leeyahay nafsada inay ka fikirto Soomaaliyeyn oo ninkan noloshiisa iyo businesskiisa maxaa ka galay isla markaas Sein ayaa goobta soo gaaray wuxuu ku leeyahay maanta dhan ayaa ku raadinaya halkay jirtay taleefkana ka soo wacay caawo dham John wuxuu leeyahay markaan laga yaabo inaa gurigaada gabadhan geyso oo gabadhan arrimaha khaaska ay u isticmaalaysay inay dhibaato soo gaarteen darta u soo gaartay ka yeeli maayo halka San uu ku jawaabay arrinka sida u maleeysiin maahan gabadhan qalbiga ay iga taala waqti xaadirka ma tagna gabadha ay korsanay iyo waxaas sheekada ma tagno waana ku sugayaa waqtiga go'aan soo gaartay in guriga soo laabto ay ku leeyahay Johan markaan wuxuu bilaabay inuu farda baxo kadibna wuxuu sheegay ilaa yaraanteeda inuu doonayo inuu difaaco gabadhan garabkeeda u ahaado 7 sano jacayl oo uu qaban oo qarsanayay si toos ah markaa inuu jecel yahay uu sheegayaa laakiin iyadu waxay u jawaabaysaa inay raali geliso arrinkaasi maadaama wiligeed ay qalbigeed u gelin wax jacayl ah kaliya ay u haysatay saaxiibkeed ugu fiican nolosheedana soo maray مثلا شعبkeeda khaaska ah hadaba su'aashu waa gabar iyo wiil saaxiibo ma noqdaan taana idinka ay idin daayay waqti xaadirkan qof kale ay jeceshahay ay u sheegaysaa oo jacaylkeeda dhan kale uu wareegay asigoo aad ugu murugsan ayuu waxa ku leeyahay waxba iska walwalin arrinkaasi oo qof inaad jeclaato waa qalbiga wax ka imaado ayana markaa waxay u soo laabanaysaa San kadibna wuxuu u sheegayaa inay waxba ka walwalin waxyaabaha dadka ay sheegayaan iyo xanta magaalada ku jirto wax walba uu xalli doono asiga dhankiisa markaa arkaa maqashan isla markii shumis ay ku boobaysaa San asan dhankiisa ayuu ka wadanayo kadibna wuxuu u sheegayaa inay wax ay sugto intuu arrinka ka soo xalli doono markii arrinka kambaniga ayidii soo xalliyo ayaan ku soo laaban doonaa ayuu ku leeyahay markaa waxaan arkaynaa ayan inay shaqadeeda ku laabatay halka San habeen iyo maalin uu ka shaqeynayo kambaniga ugu dambeynna maamulka kambaniga uu la wareegayo waqti xaadirkan San uma baahan inuu gabar korsado isla markuu adeerkiisa arrinka maqlan asigoo xanaaqsan ayuu u maanaya dhanka kale Dami waxaan arkaynaa labadii gabdhood oo wili u bateenayaan hadalla qalafsan ku dhahayaan isla markiina San ayaana u maanayo wuxuuna u sheegayaa meesha kambaniga loo aado dhammaan inuu asiga kireystay Danvina uu kireeyay ayada doonno ay ma karin isla markaas gabdhihii waxay bilaabayaan inay ka shalaayaan gabadhan hadallada ay ku dhahayeen maadaama ay aad u jecel yihiin meeshaas inay ku soo baashaalaan ugu dambeyn waxaan arkaynaa San markaan inuu u maaday ayan si uu jacaylkiisa uu sheegto oo uu sheegayaa wixii arrimihii dhibaatada kambaniga ka haysta dhammaan inuu soo xaliyay waxba inay ka walwashay inay hayaan waqti xaadirkan markii arrinka maqashana aad ay ugu farxaysaa isla markiina way aqbalaysaa jacaylkiisa oo hab ay siinaysaa qisadii jacayl San iyo ayn halkaan ayay kugu soo gabagabowday haddaba muuqaalka daya ka heshay like noo saar shirtan noogu qabo wixii fikir ah noo haysana comment-ka noogu reeb haddaan ugu cusubtaana subscribe ta dhacno si aad teamkan ugu soo biirto bye bye